maanta waxaan kula wadaagi doonaa sidii ay iigu fududaatay in aan hore ka fahmo dhaqaalaha taasina waxay ii sahashay in la iga wareysto dhaqaalaha iyo maalgashiga anigoo ahaa waagii hore qof isku eekaysiiya ninuu ilaahay wax siiyey anigoo hadda jeebkayga uu aad u maran yahay haddii aad adiguna dareemayso in aadan wax lacagaba haysan aniguba marxaladaas oon kula soo maray balse maanta fikradaha aan kula wadaagi doono waa kuwii noloshayda si uun saameyn ugu yeeshay adigana aan rajeynayo inay dhaqaalahaaga wax ka bedelaan 17 hab fikir ee ay ku kala duwan yihiin dadka taajiriinta iyo dadka faqriga qaybtiisii labaad kow dadka taajiriinta ah waxay aaminsan yihiin in ay iyagu noloshooda samaystaan halka dadka faqriga ay aaminsan yihiin noloshu waxa ay ku siiso ayaa la qaataa kaliya fikirkan uun malahan ee sidoo kale waxay leeyihiin saddex caado oo mar walba qofka ka sii dhigta inuu si ahaado faqri iyo shiid waxa ay leeyihiin cambaarayn fara badan ku qanacsanaan hooseysa iyo cabasho fara badan adiga ayaa ah wax soo saaraha noloshaada noloshuna waxa ay ku dhisan tahay sharcigan sabab iyo natiijo waxa aad sababteeda yeelato umbad helaysaa ugu dambaystana natiijadeeda talabaad dadka taajiriinta ah waxay u nool yihiin si ay u guuleystaan halka dadka faqriga ay u nool yihiin si aysan u guul dareysan dadka faqriga marka ay galaan restaurant ay rabaan inay wax cunaan marka ugu horeysaba waxa ay iska fiiriyaan waxaanay cunayaan qiimihiisa waxna isku madayaan si ay nolosha wax u tijaabiyaan haddii hadafkaagu uu yahay nolol yar oo kooban weligaa taajir noqon maysid aynu u nimaadno fikirka saddexaad dadka taajiriinta ah way ka go'an tahay in ay noqdaan dad taajiriina halka dadka faqriga ay rabaan in ay noqdaan taajiriin halka shay ee dadka ku sii hayana faqri inay sii ahaadaan waa halkan shay dadka badankoodu ma garanayaan oo uma cadda waxa ay rabaan fikirka afraad dadka taajiriinta ah waxa u fikiraan si weyn oo ballaaran halka dadka faqriga ay u fikiraan si hooseysa sharciga lacagta ba wuxuu qeexayaa cadadka lacageed ee ku soo gali kara wuxuu ku xidhan yahay dhibaatada aad xalinaysaa inta ay leegtahay dadka faqrigiina wax dhibaato oo xaliyaana ma lahan waxa ay ka fikiraan oo kaliya naftooda inta ku hareeraysan iyo jaarkooda balse dadka taajiriintii fikrad walba oo ay rabaan waxa ay ku saleeyaan xaafadooda dadkaas ku hareeraysan magaalada ay degan yihiin iyo dunidan ay ku nool yihiinba waa dad u fikira si weyn fikradooduna ay rabaan in ay gaadho dad fara badan oo ballaaran fikirka shanaad dadka taajiriintii waxa ay ku mashquulaan fursadaha halka dadka faqriga ay ku mashquulaan carqaladaha dadka faqriga waxaysan ogeyn in carqaladuhu ay yihiin meelaha u badan ee fikradaha businesska laga dhaxelo where attention goes money flows halka xiskaaga aad siiso ay awooduna jirtaa fikirka lixaad dadka taajiriinta ah way qadariyaan dadka taajiriinta ah iyo dadka guuleysta halka dadka faqriga aysan u qirinba dadka taajiriinta iyo dadka guuleysta wax aad qadariso adigana uu ku qadariyaa haddii aad rabto lacag waa inaad qadarisaa dadka lacagta haysta iyo dadka guuleystaba fikirka toddobaad dadka taajiriintii waxay saaxiib ka dhigtaan dad fikir togan leh oo guuleystay halka dadka faqriga ay saaxiib ka dhigtaan dad fikir taban leh ama dad sidooda oo kale oo aanan guuleysan cidda aad saaxiib la tahay waxa ay go'aamisaa masaafada aad gaari karayso mustaqbalka waxayna tiraa Soomaalidu saaxiibka wuxuu yahay ayaad adiguna tahay fikirka sideedaad dadka taajiriinta ah way soo bandhigaan halka dadka faqriga ay u arkaan wax taban oo tuuganimo ah dadka faqriga waxay u arkaan qofku inuu soo bandhigo fikradihiisa ka dhaadhiciyo waxyaalo aaminsan yahay iyo sidoo nolosha u arkaba in ay tahay wax tuuganimo uu rabo qofkanina inuu helo lacagtaada ama waxaad haysato inuu rabo inuu ka qaato waxayna ku qiimeeyaan fikrad walba oo noloshu u soo bandhigto in ay tahay tuuganimo waayo mar hore baa laga yaabaa in fikrad la kulmeen balse ay shaqeyn weyday fikrad walba ay dhaadaan yaan lagaaga dhicin lacagtaada ay ka fiirso inta aadan qaadan go'aan dadka xataa ku hareeraysanna way la hadhaan ugu dambaystana wuxuu noqdaa qofkani iska dabaraace fikradaha nolosha wuxuu qaataa oo kaliya dadka badankoodu halka u badan yihiin balse lacagaha u badan dadka sameeya waxa weyn dadka noqda hogaamiyaasha dadka wax isku daya dadka fikrada curiya dadkaas ayaa lacagta u badan sameeya fikirka sagaalaad dadka taajiriinta ah dhibaatada ay la wajahaan iyaga ayaa ka adag halka dadka faqriga ay la jiifsadaan dhibaatooyinka iyo carqaladaha nolosha ay la kulmaan sirtu ma ahan in aad tahay dhagax aan waxba dareemin sirtu waa qofku inuu naftiisa koriyo si uu u adkaado fikirka tobnaad dadka taajiriinta ah waa dad wax qaata waxna aqbala halka dadka faqriga aysan waxba qaadan waxna aysan aqbalin qabweynida qofka ku jirta ba u diida in la siiyo fursado isagoo maamada Soomaaliyeedna si qaldan u isticmaalaya haddii xataa aad dimanayso dhareerka waa la iska duwaa fikirka 11
dadka taajiriinta ah waxay waqtigooda ku bedeshaan si ay natiijo u keenaan halka dadka faqriga ay waqtigooda u bedeshaan si ay lacag u helaan in ay lacag badan sameeyaan waxa ay ka doorbidaan inay xasilooni ku jiraan iyo in lacag yar oo joogta ay helaan bil walba isku dayguna qofku wuxuu u furaa albaab badan oo lacag ku sameyn karayo hab fikirka 12aad dadka taajiriinta ah waxay doortaan labadaba halka dadka faqriga ay doortaan labada mid uun dadka taajiriinta ah way qadayaan waxayna ku darsadaan keeg dhameystiran oo macmacaan halka dadka dabaqada dhexe ay cunaan qadadooda iyo qayb kamida keegaas oo yiraahdaan inta kale waxa loogu talagalay dadka lacagta haysa iyo dadka taajiriinta halka dadka faqriga aysan aaminsaniinba inay waxaas oo dhan awoodi kareen oo kaliya yiraahdaan anigu qadadeeda uma cuni waana ka farxaan meeshana lagu arki maayo hab fikirka 13aad dadka taajiriinta waxay diiradda saaraan hantidooda halka dadka faqriga ay diiradda saaraan mushaharkooda taajirnimada saxdii ma ahan inaad isku eekaysiiso inaad tahay qof taajiro oo haysta taajirnimada saxdii waxa weeyaan hanti intee leeg ayaad haysataa hab fikirka 14aad dadka taajiriinta waxay si fiican u maareyn yaqaanaan lacagtooda halka dadka faqriga aysan lahaynba wax maareyn ah lacagta ama adiga ayaa maareyn ama iyada ayaa ku maareyn cadadka lacageed ee ku soo gali karaya waxa ka muhiimsan caadada lacageed ee aad leedahay hab fikirka 15aad dadka taajiriinta lacagtooda ayaa si xoog leh ugu shaqeysa halka dadka faqriga ay u shaqeeyaan si xoog leh si ay lacag u sameeyaan dollar walba oo ku soo gala ama adiga ayaa u shaqeyn ama isaga ayaa ku shaqeyn hab fikirka 16aad dadka taajiriinta way dareemaan cabsida laakiin hore ay uga socdaan wayna aqbalaan halka dadka faqriga ay la jibsadaan cabsidooda qofka doorta nolol jilicsan inuu hadda ku noolaado wuxuu ku noolaado mustaqbalka nolol adag halka qofka nolol adag hadda doortaan wuxuu ku noolaado mustaqbalka nolol jilicsan maareynta iyo almiitiisinta maskaxda waa xirfadda ugu fiican ee aad yeelan karayso halkanina waa meesha ay wax walba kaaga imaadaan hab fikirka 17aad dadka taajiriinta waa dad mar walba wax barta korona halka dadka faqriga ay iska dhigaan dad wax walba yaqaana ama waad saxsanaan ama taajir ayaad noqon balse labadan isku helimaysid inaad wax qalada oo aad noqoto arday oo wax cusub barataa waxay ku horseedaa inaad noqon karayso taajir wayna naqaana dadka idhaahdana waxaas iyo waxaas waan ka qalin jabiyay qofka xaqiiqdii taajirnimadiisa waxa cadeyn u ah intee in leeg ayuu wax bixin karaya waxaan ku soo gabagabeynayaa jumladan nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyay gacanta sare baa ka khayr badan gacanta hooseysa